had iyo jeer dadkeenu dhiirigeliyayaasha ku yar waa dad isku shimbir waaqleeya waa dad iscabsi geliya waa dad runtii ka xaraabaysta qofka ay arkaan inuu ku gaari waayo meel uu socday laakiin sidaa maaha dunidu way isdhiirigelisaa markii hore waxaan u maleynaya markii aan bilaabay inay waxii soconayaan samay soconin dabcan markii hore raxka qaadana isdhiibay si waxaan noqday runtii nin talo ku ciirtay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أدبان دي سلامين أولا هي الصوماليات ملك الساد كلا جوكتان كسور هذا موضوع كلا إيو إنجي أو مركلا يتصور فريساني ما أنت برنامج كانت لو ذاك دونا رنتي وبيزنس إنسايدر بالرا وجودا جناعسي كاست جوده هيسا جودها جناعسي والبا أيام ما أنت لو ذاك دونا إن شاء الله وحنو بهنا مركا ونقد دعونا يسانو حوي أحمد داود official channel أما أحمد داود nagu xidhnaada oo nagu soo biira oo insha Allah mawduucana waa mawduuc runtii xiisiis iyo xamaasadiisa wata oo aan isleenahay ku falanqeeya dhalinyarada Soomaaliyeed ee mar walba ka fikiraysa sidii ay ganacsi ku abuuran lahaayeen sidii ganacsi guuleysta ay u yeelan lahaayeen iyo sidii ay ganacsigooda u sii horumar lahaayeen baan kaga hadlaynaa waxa ay gula martay barnaamijkan oo ay gula jira walaalkeen Muxtaar oo isaguna dhiirigeliye labaad iyo anigu Axmed Daawuda soo dhawaada insha Allah مختار سودو aad ma santay Ahmed aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb galo barnaamijka Business Insider amba gudaha ganacsiga aan ka hadli karno maadaama aan Soomaaliyeed nahay maxaan ka aaminsanahay ganacsiga iyo marka hore magaca ganacsiga soo qaadaba maxaa maskaxdayda ku soo dhacay gaarida aad baan ugu faraxsanahay Ahmed ma santay thank you aad baad ma santay Muxtaaro runtii hadii aan qodobka dul istaago aad ka dhawaajisay waxay dhalinyarada Soomaaliyeed ka aaminsan yihiin ganacsi haddii aan qodobka dul istaago runtii waxaad dareemaysaa in dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka aaminsan yihiin phobia ay ka qabaan ganacsi in la bilaabo ama ganacsada la noqdo taasoo ay u sabab tahay baan aaminsanahay iyagoo aaminsan inuu ganacsigu ku bilaawdo ama lagu bilaabi karo ganacsi dhaqaale badan oo ganacsigu inooga baahan yahay dhaqaale badan laakiin haddaynu si kale u dhigno ganacsigu ma baahna dhaqaale badan mar walba mar iyo dhif buu u baahdaa dhaqaale badan laakiin ganacsigu wuxuu u baahan yahay fikrad cajiiba wuxuu u baahan yahay in la casriyeyn karo ganacsiyadii hore oo ganacsiyo cusub laga fikiri karo aad u fudud waxa ganacsiga markaa ka muhiimsan waxa weeye in la helo fikrad shaqaynaysa fikrad ganacsi oo shaqaynaysa in la helo ayaa ka muhiimsan in ganacsi loo dhaqaaqo la abuuro oo dhaqaale weyn laga fikiro marka waxay ku qurux badan tahay Muxtaarow dhalinyarada Soomaaliyeed phobia inay iska saaraan oo ay ka fikirayaan mar walba haddaad ganacsi u dhaqaaqdo dhaqaale culus buu kaaga baahan yahay haddaad ganacsi u dhaqaaqdo ma awoodid dhaqaalaha haddii aad ganacsi u dhaqaaqdo yaa ku caawinaya ku garab istaagaya haddii aad haddaad ganacsi u dhaqaaqdo armaad ku fashilintaa oo iyada lafteeda cabsi baa qayb ka ah sababaha ay dhalinyarada Soomaaliyeed ugu dhiiran lahaayeen inay ganacsi abuuraan cabsidaa qayb ka oo wuxuu ka cabsanayaa inuu fashilma hadhow fashilka qofku haddii uu kasii fikraa inuu fashilmana waa hubaal inaan waxba isku dayi karayn marka cabsiduna qayb bay ka qaadataa in dhalinyaradu ay ka cabsato inay ganacsi abuurto oo cabsi badan ba halkaan ka taagan anaga martaan dhalinyartina iyo adiga laftaada warunta waxaa laga qabaa hadda waxaad sheegtaa phobia maxay tahay kalmada phobia waxa weeye waa qofkiiyo markaa cabsi fara badan macnaha mala awaal waxaan jirin oo qofkiiyo mala awaalaya inay dhibaato kala kulmi doonto haddii waxa galo marka yani waa qof markuu leeyahay warif if haddii aan geli lahaa waana daniga samaha نبي قرينا وقتي حديث طبعا إننا معدن وصنع أنت بدنا نسمع هذا الواحد كل يرينا نعمل ملاها كاس باس كاسمية ملاها واحد جاي من دون خسارة ملاها عب صفر بدن ومر كل كعب سنة إنه هدو جول درهيستو أو كعب سنة إنه هدو خسارة أو كعب سنة سيدي ده الواحد نوجناه دنيا ده حال سكور عسي إن أنا خسارة كريم dadka cilmiga ganacsiga ku talax tagay iyo dadka khubarada adduunyada dadka dhiirigeliya waxay mar walba ku sheegayaan ka hornaya guul darro ma jirtee waxaa jirta laakiin waddo la yiraahdo isku day la gaari waayo halkii loo socday laakiin laga bartay cashiro waaweyn oo markaa qofka tusaale u noqonaya nool oo markaa uu hadhow kaga baydhayo halkii hore uu soo maray isla markaana uu ku jeexanayo waddo cusub iyo dariiq cusub wax ku bilaabo marka the whole thing waxa weeyaan inuu qofku wax ka barayo xitaa mistaken aqoonta lacag khasaar dabcan haddii xitaa lacag khasaarto macnaheedu waxa weeyaan khasaarahaasi akhiru jira khasaare ka weyn baa jira khasaare adduunyada mar walba waa koobay macnaha waa isku day ku fail garoobay laakiin isku day laga fahmay casharo weyn oo marka casharada loo qaadanayo in dadkii ka dambeeyay inaad uga digto adiga inaad wadada ka duwan حتى waa experience waxaan oran karnaa fail waa experience
inuu qofku wax isku dayo uu ku guuldarraysta waa experience khibrad waxa wax lagaa weydiin karaa ganacsigan aad isku dayday ee haddana fail garowday maxaa sababay sababaad ka sheekaynaysaa marka lacagta igu yarayd meeshaan ka furay baan ku habboonayn dabcan waan iska hiikacay oo saaxiibkii baan iskaga dayday ama qof baan ku dayday balaa qofku waxa uu tirinayo dhan waa casharo dad kale u noqonaysaa tiir ay cuskadaan marka ay dee dabcan wax ku qaataan oo markaa kaga baydhaan waan nin motivational speaker oo waxa jira cadaan oo jay sheekh lado wuxuu yiraahdaa markaas let's share the stories earlier that means like in islamka sheegsido weeyaan qofkii markii wuxuu ka soo arkay guuldaradii ganacsiga badan ka gaadhay ay markaasi la sheegaranaya walaalihiisa ka soo marka inuu dadka sometimes inay dad ku fail garoobaan dhalinyar oo fara badan ganacsiga ay bilaabeen dad kale dan u tahay sama definitely marka aniga maanta dan ima aha oo ku khasaaray laakiin dad badan bay dan u tahay soo waana ka fikirin baa anigu khasaaraha maanta u dhacay laakiin waana dhahdaa iso qof oo kale ayaan ku save gareeyay lacagtooda oo maybe ku khasaarin lahaa lacagtoodaas meesha markaan ku khasaaray soo marka meeshii 20 kun qof ka khasaari lahaa wax fiican inay 5 kun qof khasaaraan si 15 kale loo badbaadiyo صح dhinaca kale hadii laga eego isku dayga waa muhiim in wax la isku dayo salahan hadii maanta ganacsi u dhaqaaqin aad isku daydo haddii marka muxtaar ahaan ku weydiiyo su'aalaha muxtaarow weligaa ma isku daydo inaad ganacsado noqoto wax abuurto ka waran wixii caqabada kaa hor yimid iyo wixii guuleeyo fursada kaa hor yimid sideed labadoodaba uga jawaabtay runtii aniga sheeko igu dhacday jirto sidaas imka aad sheegay sidoo kale oo ganacsi baa jiray aan ku jiray laakiin yaana dhahay ganacsi laakiin shaqo jirtay oo meel aan ka shaqeynay baa jirtay kulliyad oo luqadka waxyaabahaas online ku dhigtay runtii maasha Allah mushaar fiican baan qaadanay laakiin waxaas dhahay bal ganacsi adiga aad khaas u tahay oo xor u tahay bal ku biir ama bilow si uu dhaqaale xor kuwa ku soo galo waxa jira markaas sidii runtii ganacsi loo rangelay ma aan garanaynin inaga Soomaali markaan nahay dhalinyar walibana hikaab baan ku dhacay hore oo ambaba qof baan arkinaa wax ku bilaabay kadibna wixii markiiba u gaaray meel sare kadibna xasdaayna hebel buu u shaqeeyay adan ku shaqeynay ma agnaba circumstances oo qofkan kala soo maray duruufaha obstacles badan soo maray ma eegino isagii uma tagino ma weydiinano duruufaha ku soo maray ma haysaa ku barna kaliya waxaan dhahaynaa bal samee waxa qofkaas uu sameeyay dariiqada fudud dariiqada wax ku shaqeynay oo runtii ay dariiqada hadana aan saas ku sii xog aan loorin aan markii ila muuqata aniga fudud tahay laakiin inside out markaad u gasho barnaamijkan la macnaheedu ma tahay inside ka u geli gudaha ka galno noqonaysa adeeg ayaan isku qaaday kadibna waxaan doonay inaan ganacsi sameeyo runtii markii aan galay ganacsiga wax walba aan diyaarsaday ayaa uu noqon waayay sidii aan ka waday sidii aan markii hore doonay inuu shaqeeyo waayay wiji kale oo la sameeyay marka inta badan waxa jirta in dhalinyar Soomaaliyeed ay wajiga cusub oo ganacsiga la sabaxayo inay u diyaar baahan wajiga cusub inay u diyaar yihiin imooday wajiga ku kale inuu ganacsiga ku tagnaan wuxuu kaaga baahanaya horumarin buu kaaga baahanaya dhaqaale kaaga baahanaya soo waxa jirta haduu ganacsigu iska yahay oo kale inuu qof maybe 4 bilood 5 bilood 6 bilood uu uga fadhiyay inuu ganacsigaas uu keeno faa'iido laakiin ganacsiga ku dhis adiga wali dhaqaalaha ku dhis wali ganacsiga adiga geli dhaqaale isagana waxa hayna sameeyaa maadaama uu dadku yar yahay baahiyo marka waxaan aniga waxyaabaha ila gudoomayaan inuu qofku maaragtay ganacsi marba aad doonayso inuu ganacsi bilaabo inuu marka hore shaqaylo ka bilaabo shaqaale markaad ka bilowdo kadib wax urursato adoo garanay waxyaaba kaaga imaanaya inaad u diyaar garowdo markaas waxa khasno toorta badan uu yahay maadaama inta badan ganacsi dadkan ganacsiga sida aad wax ku qoray muqaddim Englishka wadamada shisheeye markaas ay naga yimaadaan inta badan marka ganacsigaagii aad ka timid iyo kaaga cusbay aad bilaabatay waxa hortaagan waxa weeye khibrad la'aan kow oo way aragnimadii baa inagu yar mar hadaynu age-keeni buu yar idaaha way aragnimadoo yar batri waxa kale oo qayb ka noqday akhriskoo yar macnaha in qofku wax badan inuu soo la daalacdo oo raacdo dad kale oo khubara dhageysto daawado web documentary oo noqdo marka aan ku xiriiro sidee dadka guuleystay marka uu talaabooyinka iyo talooyinka ay siinayaan uu qaato mar hadduu akhrisku inagu yar yahay waa pointi kamida dadka ganacsatada abuuraya hal abuurka sameynaya ganacsiga abuuraya inaanay in fara badan tixraac sameyn waxaana taa ku garanaysaa dadkeena Soomaaliyeed shaqadoodu way isku wada eegtay business isku wada eeg baan sameynaa dukaan baa la furaya ku kala laga furaya bakhaar baa la furaya ku kala laga furaya kaba la furaya kaba kala laga furaya
baasta la soo dejin baasta kale soo dejin waxa taasina ay ku cadaynaysaa inaynaan lahayn waayo aragnimo aan wax ku baadhno oo fikrado cusub aynu ku curino curintiiba aynagu yar haddaynu markaa hal abuur leenahay oo fikrada aynu curinayna ay mar walba ay badan yihiin waa la kala baydhaya oo qofkii dukaanlaha ahaa ee dukaanka furtay waxaad ka fikiraysaa muxuu u baahan yahay dukaanlaha iyo dadka ka adeeganaya laftoodu maxay u baahan yihiin inaan dukaan kala furaa maya maxaa furaya waa inaan furaa markaa baahidooda kale ee markaa guriga taala aanana dabal farmasi bay u baahan yihiin waa inaan farmasi kaa furaa haddii dukaan la jiro dad aan bulshaa ku xidhan bulshadiina farmasi bay u baahanaysa haddii tusaale ahaan farmasi meesha ka furan yahay oo dabcan bulshadii inaan farmasi kale ka furo waa inaanay ugu qaadayn laakiin aan ka fikiraa maxaa bulshada farmasigan ku xidhan iyo goobtan jooga maxaa kale ka dhiman waa in markaa dee ama xanaano weyn loo soo kordhiyo ama wax kaloo ka duwan oo ka baxsan marka dadkeenna waxaa ku badan had iyo jeer oo markaynu business insiderka u dhaadhacno ganacsiga aan gudaha u galno waxaa ku badan isku ekaanshiya ganacsiyada isku eeg fikradaha aadka iskugu dhoweey isku eeg iyo qodobadii hore usoo tirnay ahaa cabsida dhaqaale la-aanta qofkoo humaag iyo malawaal wax ku abuura oo 20 tusaale ahaan ganacsi waloo la abuurayana dusha lagagama yimaado hoostaa laga bilaaba si uu u dhismo ganacsigaas oo aqoon iyo waayo aragnimo loo helo tusaale waxaad arkaysaa say doontaba qofka kusoo gasha dhalinyarada $50,000 baa qof soo gelaya $50,000 buu meel weyn ku furaya supermarket weyn amaba meel shopping oo weyn ama pharmacy weyn ma laha khibradeedii hadday doonto maba ahaba wuxuu isagu soo bartay oo aqoon iyo khibrad uu leeyahay manuu daraasay laakiin lacagtan soo gasho wuxuu ku qabtay uu garan waayay kadibna ganacsigu iska gelinaya ganacsiga markaa hoos buu soconaya waayo fikrado cusub kuma soo kordhin karo aragtiyo cusub kuma soo kordhin karo maskaxdiisu in badan ma shiili karo oo lacag aanu isagu marka horeba sii qorshayn kuna talagelin baa qofka kusoo dhacaysa kadibna meel buu iska gelin hoos bay u soconaysa way daadegaysa marka laakiin ganacsiga guulaysanaya waxaa lagu gartaa isaga waa qof hoosta kasoo bilaabayo shilin u geey fikir yaro cusub buu helayaa marka maanta waxaan ku qodobka marka maanta ay ka hadlayno wuxuu ahaa business insiderka marka mukhtaar haddaan su-aasha kugu soo celiyo adigoo inoo soo koobaya miyaad isdhiibtay mise weli waad sii socotaay oo dabcan dhalinyarada say dhiirigelin miyaad sii socotaa oo barnaamijyo kala dana isku dayday mise waa isdhiibtay halka baad ku kuwayd garaysa no runtii waxa u dhexeeya farqi weyn baa u dhexeeya mukhtaarkayga hadda cusub ee la hadlaysa koox fadhi iyo mukhtaarkii hore difference weyn baa u dhexeeya markii hore waxaan u maleynayay markii aan bilaabay inay wixii soconayaan samay soconin dabcan markii hore waxaan ka qaaday weel isdhiibay si waxaan noqday runtii dee nin talo ku ciirtay tala igu ciirtay runtii waayo waxaan hadda inta nin shaqo ka yimiday doonay inuu business baan gaar u samaysanaya businesskiina ku dhacay indho badanna soo eegeen kadibna la dhahayo waanana kuu sheegin anigu dadka caddaanka waxay dhahdaan didn't I tell you miyaana kuu sheegin anigu waana kuu sheegin marka anigoo ka cabsoonaya dadkii asxaabtii iyo dadkan ka saddex baxay in dhahay business baan abuurayayo leelaha warnigo iska fadhiyo maaha xilligii anaa lahaa dhammayna waa iska qaaday waa xilligeedii aan ku dhacay dee indhihii badnaay ka imaanayay iyo runtii wixii waa hiliddigii markii hore horta dhulkii la samay waxay keeneen markaa inaad isqariso waa qodob ka mid a qofku haddii uu wax isku dayo waxaasi ay u noqon waayaan inaanu isdhiibin inaanu ka cabsan dadkii ku hareeraysnaa had iyo jeer dadkeenu dhiirigeliyayaasha ku yar waa dad isku shimbirwaaqleeya waa dad iscabsi geliya waa dad runtii ka xaraabaysta qofka ay arkaan inuu gaari waayo meel uu socday laakiin sidaa maaha dunidu way isdhiirigelisaa oo waa la iska garab qabtaa oo qofkan waxbaa lagu kordhiyaa oo dabcan ayso baa la yidhaha hore u soco sida Etoobiyaanka hore u socaa la yidhaha qofkii go ahead baa la yidhaha marka adiga waxaa kugu dhacday inaad guriga hoos ka soo xidhato markii horeysa runtii guriga intaan hoos ka soo xidho ay dadkii xaafadii la yaabay dhaha waa inuu ka cadeen iyo nin bambari buu ka xishire ninba dadka way dhacaan waa la yidhi boodiyo rag baa la yidhi maalinba mid baa qaadasama sax marka anigana halkii cusubtahay moogtahay dadkana dee dadka waayeelka horey usoo arkeen waxyaabahan dad baa lagu dhahaa qaarkood baa lagu yidhahdaa maraakiibba dad ka degaan si niyadda kole iyo soo dhisaan dad bay wax ka degeen dad bay ganacsigiiba u hirgeli waayeen dadbaatay adigu maxaad qaasatay laba in yarna qama ka guwatay bay oo maybe mushaariddii aad qaadanaysaa wasiga ciyaartay oo tirmid kala bilaabayaabay dad baa kuma halaan malaayiin waayaba saxiib waa runtoodii horta run bay sheegayaan sometimes laakiin psychology ahaan waxa dhacaysa qofka inuu maskaxda ka dhashado laakiin alxamdulilah waan kasoo kaxay wanaga runtii kahor fadhiya iminkaa bad moodaaba inuu ganacsiga dhadhan ii samaynayo hadda aan kusoo dhiiriday inaan dee runtii bilaabo wuxuu doonaba waxaan bilaabay wuxuu doonaba ha ahaadaane maadaama una waxay midkii doonanacayn tahay wax saxa yihiin oo ganacsi saxa
inaan kusii dhiirto markaa runtii isma dhiibin jawaabteedu waxa weeye isma dhiibin waa qodobkaan sheegay dhamayba mukhtaar aad buu inoogu bayaamiyey waa qodobkaan sheegay qofka hadduu wax isku dayo waxa uu fail garoobo inaan u qaadan inuu nolosha ka dhacay laakiin uu u qaato inuu si kale u qabto oo meel si kale iskugu dayo inuu si kale barnaamijkaa u bilaabo waa I hope inuu mukhtaar mar labaad soo laba kacleeyey barnaamijyadiisiina sidii loogu talagalay uu iskugu dayay maantana meel fiican uu mariyo idinkaba uu idin soo hor fadhiyo oo uu idiin sheegayo markaa taariikhda yarada gaabneed uu lahaa inuu ganacsi isku day inuu shaqaale soo ahaa mushaar fiican ku shaqaynayay laakiin han uu galay han baa galay uu iskaga yimid kadibna shaqo uu leeyahay uu bilaabay uu fail garoobay laakiin fail garowgii muu sababin inuu isdhiibo halkaa markaa ganacsigiiba kaga xanaaqee another time chance kale u qaatay chancekiina maanta meel fiican buu maraya marka waa sida qisadayda oo kale taana mar kale aan ka sheekayn doonaa insha allah aad baad mahadsantihiin kolay episode 2 gaan soo samayn doonaa ها marka barnaamijkaas intaas maanta inoogu eegyahay ha isdhiibina weligiin hore usii socda loof baan idinku nahay waan jecelahay meel kasta aad joogtaan ku xidhnaada Axmed Daawud channel soona siyaarta subscribe-ta iyo weliba like-ta iyo share-ta thank you waan dileen mukhtaar waad mahadsantahay adiga mudan